السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada habeen cusub iyo waan isku ikram bas wax yar inaan soo jeediyaan rabay oo ku saabsan arrinta doorashada sidaan u ognahay dadka oo America ku nool doorasho lagu soo socoto oo November 6 maanta waxa waaye October 8deeda berito maanta ugu dambeysa waaye si ay qofka registrationka oo vote-ka ay soo biso ama dadka qaarkood waxay fahamsan yihiin doorashada inay waxa la important tahay markii oo madaxweynaha dooranayo and I know in madaxweynada dooranoonin waxaan ugu soo socoto 2 sano kale oo dhiman before oo madaxweyne doorashadiisa asubino laakiin doorashada oo waxa waaye Congress-ka hadartaneeto iyo markii labada party Democrats oo Republican la kala dooranayo and wadankaas oo shaqeeya waxay tahay qofka oo the most seats haysato in the Congress is dadka oo codka adag oo qaban the right in bills cusub baas garaysiiyaan ama ay wadanka go'aamadooda because kuraasi codkooda la xisaaba so marka hadda camal saa ogtihiin kuraasta badankood waxaa haystaan Republicanka so madaxweynaha oo hadda wadanka xukumo waa iska taqaaniin ninka soo yahay laakiin anaa rabanta inaan kusii daro laakiin because kuraasta badankood Republican haystaan qanuunada soo dejinayo waa la gudbisiyaa just because isaga Republican waaye and dadka oo kuraasta haystaan inay isaga taageeraan waaye it's very important hadda sanad markii oo October 6 ay imaado inaan doorasho u baxno inaan wada doorano si oo kuraasta party aad rabtid ama whether are Republican tahay ama Democrat tahay oo kuraasta u heshid u helno so mawduucan wuxuu important u yahay because labadii sano lasoo dhaafay waxaa stresska ugu batay oo dadka waxaa because madaxweynaha waa aragteen qanuunada oo soo dejinaya qanuuno oo waxay ahaayeen dadka oo minority support gareynaynin dadka oo muslimiinta support kasoo horjeedo so dadki waxaa batay hate crime-kia batay dadka islamophobia dadka diinta inaa lagu xumeeya inaa dadka kalarkood lagu xumeeyo dadka inaa meesha ka yimaadeen lagu xumeeya ee noqotay waxaa kaloo dhacday ina ma aragteen markii muslim bank la suubiyo oo muslimiinta wadamada qaarkood oo muslimka inaa laga mamnuuca inay wadanka soo galaan waxaas dhan markii oo bani aadanka maalin kasta inuu la diil garay ee noqoto stresskiisa badanayo so stresska markuu bato walwal oo bato then mental health malawaanayo of course qofka markaas maskaxdiisa wax waa u dhimaa because maalin kasta adi walwal iyo walbahaar ma ku joogi kartid annagan wadankeena waxaan ooga soo tagnay aaminaad iyo waxa inaan deganaan iyo peace aadino so uma imaanin inaan nala dhibo inaan nala cadaadiyo inaa especially wadan oo marka America ama joogtid freedom of religion ay qabaan freedom of speech ay qabaan so waxyaabo badan ay ku dhahaan freedom kaaseta qabnaa laakiin markii oo dadka lagugu soo diro oo dadka lagugu soo jeediyo then freedom helaysa cariiri galaysa so sidaas darteed qofka stresska badan yahay haddaa shaqo waysid because diinteeda ama saa u eg tahay ama saa u labisan tahay ama kalarkaaga lagugu diida shaqo haddii wiilashii aaminku mari karin jidka ee iska baashaali karin ee ciyaari karin ee oo waxaa noqonayso askarta xumeynayaan waxaas dhan dhibaatooyin iyo walwal u keena so sidaas darteed waa very important waa aad ay muhiim u tahay inaa markii doorasho ay jirto sida hadda November 6 soo socota insha Allah inaan baxno oo doorano inaan Congress-ka doorano inaan kuraasta soo ceshano si oo nabadgelyada ugu soo noqoto si oo peace-kii iyo wixii aan rajaynaynay iyo sidii aan ku nooleen intii laga before the last 2 years inaan usoo noqono so waxaa rabaa qof kasta oo 18 jir gaarsiisan oo American inay isregister garayso maanta iyo beriya haysataa inaa vote garaysid November 6 inay baxdeed it's important madaxweynenimada wax ma tarayso marka haddaa madaxweynaha markii dooranayaan dhahdeed haddaa fariisana there is no point you need to inaa baxdeed November 6 inaa dooratid also waxaa jiraan certain bills oo bilal qaarkood oo meesha oo lagu soo qoray yes or no learn about those baro maxay ka hadlooyin mid hadda waxaa jira qanuun oo the gerrymandering ay dhahaan which is hadda masalan markii doorashada ay dhacdo sid waa aragteen markii doorashada ay dhacdo Hillary Clinton iyo madaxweynaha hadartaneeto Hillary Clinton codadka badisay laakiin qanuun oo gerrymandering la dhahaa jiro oo politicianska ay doorahayaan which one I would garanayo so eventually even though codka badankiisa ay heshay maysan helin kursiga waa laga qaaday
So gerrymandering cassette is very important. We go learn about it because we have to vote yes. Kaas inaa la bedelo and I shouldn't tell you actually hada waxaa vote gareynaysiin laakiin you should inaa baratid wuxuu yahay iyo wuxuu ka hadlaayo and then markaas doorashada aad dooratid. Taas waa November 6 beri ku eg tahay doorashada at least stateka aan joogno anaka ogaa statekaga gormuu ku egyahay inaa is register garaysid si oo codkaaga loo xisaabo waa intaas iyo wana soo ikram. Salaamu calaykum.